daawadayaal sidaan hore hordhac idin kugu soo gudbinaa waa guud ahaan waxaynu ka hadlaynay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata gudaha dalka Turkiga oo maanta xaflad balaaran halkan loogu qabtay isla markaana ay ku qalinjibinayeen ku dhawaad 200 oo arday ah oo isugu jirtay heerka dugsiga sare iyo heerka bachelorka ardayda waxay ahaayeen kuwa muuqaal ahaan laga dheehan karo farxad balaaran maadaama aad ugu faraxsanaayeen heerka koowaad ee jaamacadda ay leesteen kuwa kalena hadda ay u tilaabayaan heerka jaamacadeed maadaama ay u dhamaatay heerka dugsiga sare haddaba arday kala fara badan iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ayaa idin soo gudbin doona arrimahan ka hadlaya gaar ahaan waxbarashada sidoo kale qaybaha dambena waxa idin soo gudbin doona hadduu eebo karaal noqdo wasiirka waqaafta dalka Turkiga oo asagana ka hadlay xafladii caawa lagu qabtay halkan xafladda waxa ka soo qayb galay Soomaali aad u fara badan kuwaas oo kamid ah kuwa ku nool dalka waxayna ku faraxsanaayeen farxadda iyo reereynta ka muuqanaysay ardayda Soomaalida shucuurtooda la qiyaasi karin ka yimaaday gobolada dalka Turkiga ka tirsan inta badan ardaydan waxay kamid ahaayeen kuwa ka imaanay Samson qaarkood oo hadlayana insha Allah waa idin soo gudbin doona meel xafladii caawa isku aragnay dareen ahaan waxay ahayd qof ku faraxsan marka inay la wadaagto shucuurta ardayda Soomaaliyeed halkan soo gaaray maanta qalin jibinaya waxaan rabaa in ka arday ahaan sida ay u aragto xafladii caawa halkan lagu qabtay dareenkeeda mandhawa walaashay Koosar marka hore aad baan ku salaamayaa TV-ga dadkayga daawanaysan aad baan u salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaamta salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh maanta meeshan waxaa ka dhacday xaflad aad u qiimo badan oo ku qalin jibinaysa ilaa ay gaaraysa 200 oo arday ah oo ka kala imaadeen dalalka Samsun, Istanbul, Kayseri meelo badan ka kala imaadeen dugsi sare iyo jaamacad iskugu jira maasha Allah dareenka hadii aad noo qaada aad baan anaga shucuurteena aad bay u sareysay walaahi markaan wareystay waxay ilaa hamigood ahaayeen ilaa iyo waxbarashada inay meeshan ka sii gudbi doonaan ilaa heer sare sii gaari doonaan oo dhahaayeen anaga hadeertaan waxbarasho inoo furnaatay hadeertaan wada ay inoo furnaatay idinkana ducadiina baa idin ka doonayna haduu Ilaahay yiraahdo shucuurtooda aad bay u kacsaneed maasha Allah anagana aad baan ugu faraxsanahay haduu Ilaahay waayahay daawadayaal bilihii ugu dambeeyay waxa laga dareemayay ardayda Soomaaliyeed kuwa aad u daneynaya isla markaana la qabsanay waxbarashada dawladda Turkiga ay ka caawisay Soomaaliya arday Soomaaliyeed kaliya ma aha kuwa dhigta sidoo kale arday kale oo ajaanib oo wadamo kale ka yimid ayaa halkan wax ku barta dhamaanna waxa halkan lagu qabtay xaflad balaaran oo isugu imaanayeen dhamaan ardayda ilaasatay heerka dugsiga sare iyo heerka jaamacadda ee bachelorka dhamaan waxay ka soo qalin jibiyeen faculty kala duwan ay baranayeen waxaana farxad gaar ah tahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee daawanaya muuqaalkan maadaama ardayda Soomaaliyeed hadda ay yihiin kuwa muujinaya hidilooyin wanaagsan inta badan dawladda walaalaha Turkiga ayaa ka saaciday ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda inay siiso fursado ay wax ku bartaan kuwaas oo haddaba ay ku muuqanayaan farxadda caawa halkan laga dheehan karay muuqaalada iyo khudbadaha kala duwan ee ardayda Soomaaliyeed ay holkan caalami ka soo jeediyeen dareenkooda sida uu ahaa sida ay u arkayeen sidoo kale markaan waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo kelmad kaga aadan caawa xafladda halkan lagu qabtay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed dalka Turkiga mudane Said Cali bismillaahir rahmaanir rahiim Koosar media soo dhaw marka hore dhamaan waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ee dunyada ka joogan maanta farxad weyn bay noo tahay dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan ka soo qayb galno xafladan quruxda badan sida quruxda badan ay u soo agaasatay dawladda Turkiga hay'adda u qaabilsan arrimaha waxbarashada diyaanad maanta farxad gaar bay ii tahay anigoo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed dalka Turkiga inaan ka soo qayb galo xaflada quruxda badan maanta la soo agaasimay Koosar ay la socotid maanta waxa halkan ku qalin jibiyay arday fara badan ajaanib ah oo wadankeena Soomaaliya ay kamid ahaayeen ardayda qalin jibinaysay walow ay ugu badnaayeen ardayda Soomaaliyeed halkan tirada ahaan marka wadan ahaan loo qiimeeyo wadanka ugu badnaa wuxuu Soomaaliya haddaan ardayda qalin jibisay aan wax ka xuso ardayda qalin jibisay maanta tiradooda waxay gaaraysay 190 arday oo secondary heer koowaad 190 arday oo secondary ah iyo 29 oo heer koowaad ee jaamacadda ah oo bartay sharci qaanuun waxaan leeyahay Ilaahay ka dhigo kuwii bari wadanka anfaco wadankii wax u qaban doono maanta wadan walba waxa horumariyo dhalinyaradiisa maanta dhalinyarada qurux badan maanta halkan qoran jabiseen waxaan u rajaynayaa guul wanaagsan inay bari ay noqdaan kuwa mustaqbalka Soomaaliya ee wax ka bedela aadan ugu faraxsanahay inaan maanta meeshan ka soo qayb galo xafladda qurux badan maanta meeshan lagu qabtay sida la socotid Koosar media dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee ku xiran page-kaadina aadan u salaamaya daawadayaal sidaan hore idinku sheegay waa Koosar media oo idin soo gudbinaysa xafladii halkan ka dhacday caawa oo ay ka soo qayb galeen dadweyne kala duwan oo halkan ay isugu yimaadeen farxadda ay la qaybsanayeen ardayda Soomaaliyeed ee ajaanibta isugu jirta ay wax ka barta dalka Turkiga
magaalooyin kala duwan ayaa ardaydu ahaayeen kuwa ka imaanayay oo idleystay heerka dugsiga sare iyo heerka jaamacadeed dhammaanna halkan ayaa xaflada caawa loogu qabtay oo qalinjibin ah iyagoo shahaadooyin halkan lagu guddoonsiiyey dhammaan intii ka qayb gashay ayaa waxay la dhaceen isla markaana ay soo dhaweeyeen sida ardayda Soomaaliyeed ay ugu dadaalayaan dhinaca waxbarashada magacayga waa Axmed Sheekh Cali Sheekh Ibraahim aad ayaan ugu faraxsanahay caawa in halkan xafladeeda qalinjibinta ka dhacdo iyadoo ilaa iyo 600 arday ajaanib loo qabtay 200 Soomaali ay dugsiga ka qalinjibinayso ilaa 50 ku dhawaadna ay jaamacadda ka qalinjibinayso waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay xafladani intii kale tan waxaan u gudbinaynaa sida u dhacday meeshan farxad ayay noogu dhamaatay idinkana aad ay u mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Xasan Xidig Cabdirsaaq Axmed waxaan ka imid magaalada Samsun aan kala joogo caawo waxaan ka soo qayb galnay xafladda qalinjibinta jaamacadda alxamdulillah caawo waxaan halkan ku gabagabeynayaa insha Allah soo rajeynayo laba jaamacadood oo midna ay tahay business administration midna ay tahay kulliyadda shuruucda islaamiga caawo insha Allah taala waxaan ka rajeynayaa labada jaamacadood oo xafladooda ka soo qayb galay inuu guul ugu sii dhameystiro inta kadib insha Allah levelka ku xiga oo waxbarashada masterka baan jeclahay insha Allah taala inaan halka ka sii wado sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Kowsar Media oo maanta xafladda nagala soo qayb gashay oo waxa weeye kaalin mugla ka qayb qaata firfircoonida dhalinyarada marka aad baan ugu mahadcelinayaa Kowsar Media mar labaad iyo mar saddexaadba aad baan ugu faraxsanahay caawo waa habeen damaashaad weeye habeen farxadood weeye waa habeenkan sugaynay dunida ka sugaynay caawo kale inaan gaarno alxamdulillah ilaahay nabad iyo caafimaad buu nagu keenay xafladii hadda way noo dhamaatay gabagabo weeye ilaahay waxa ka rajaynaynaa guul iyo khayr aad baa u mahadsantihiin magacayga waa Cabdisalaan Cilmi Sheekh Cali waxaa ka imaaday magaalada Samsun gobolka Karadnis cawad waxaa halka u soo biirnay xafladda qalinjibineed ay noo qabatay dowladda Turkiga anoo ka qalinjibiyay kulliyadda theology ama shareeca iyo kulliyadda public administration waxaan ahay arday isku waday laba kulliyood labada kulliyood insha Allah sanadkan ayaa dhameynaya waan ka qalinjibinay insha Allah si fiican ay nooga dhamaatay xafladdan xaflad fiican ay noo dhigeen dowladda Turkiga iyo dhamaan shacabka ayadoo ku soo qayb galeen arday fara badan oo Soomaaliyeed oo kala duwan oo isku jiro kuwa dugsi sare iyo kuwa jaamacadeed waxaa kaloo jeclaan lahaa inaan ku darsado intaas kadib Kowsar Media Kowsar oo ayaantaan macnaha ku taxanaay anoo run ahaantii ka bartay Facebooka gaar ahaan sawirada fiican iyo fiidiyoda ay kasoo diyaariyay magaalada Muqdisho waa program aad u fiican waan ku dhiirigelinayaa cawada markii aan halka ku arkayna aad macnaha farxad gelisay ma u maleynay inay joogto Turkiga ma maleynay in Ankara laakiin cawada halkaan kulanay ayada aad u madciinaa insha Allah si fiican oo horumarsanay inay ku sii wado ayaa rajaynaa waa u rajaynaa waana ku talnaa waana barnaamij fiican oo Soomaalinimo iyo qabato waay si aad iyo aad ayaa u madciinaa Kowsar walaasheen waa qaaliya anigoo ah Cabdiqani Cali Xirsi waxaan aad ugu faraxsanahay maanta xafladan aan ku qalin jabinayno kulliyadda shareecada iyo qaanuunka insha Allah taala kasoo qaybgalka nagala soo qayb gashay Kowsar Media oo ku soo dhaweynaynaa sidoo kale waxaan qaban doonaa xafladaas oo Samsun ku qaban doonaa qalin jabinta Soomaalida dhexdeeda waxaan aad ugu faraxsanahay oo dareen la soo koobi karin aan ka muujinayaa maanta oo maalintii aan sugaynay oo aan ka qalin jabinayno jaamacadda Onto Kismays kulliyadda shareecada sidoo kale waxaan sugi doonaa ayadana maalinkan ka qalin jabin doono kulliyadda public administration-ka jaamacadda Anadolu University ما شاء الله وحيان صادون إنه يحاول علمي وقت ليسي أبو تلقى وقالنا الحمد لله تعالى وحن غندونا إن شاء الله ضد ودن كودا إن شاء الله تعالى ضد كودا وهذا كوزر ميديك سقط كلنا سقط سنة وكم ما سنتاي magacayga waa Deeqa Maxamed Nuur waxaan kamid ahaa ardayda imaatay sanadda 2011 alxamdulillah waxaan ka qalin jabiyay jaamacadda Ankara University faculty-ga Islamic Theology
5 sano hadafkii waxa u soo dadaalayna guusheedii inaa gaarnay aad iyo aad Ilaahay ugu mahadninaaya aadaan ugu faraxsanahay maanta meeshan waxa isugu imaanay in ka badan 200 arday Soomaali oo isugu jirta dugsi sare iyo jaamacad inay qalin jibiyaan wallahi farxad la soo koobi karin waaye ma sha Allah والله كالنت دمر كي أخبرشة كليهن وكالن عادي آدم مهمسن ما دام لفدبرت برشة أيهن هل قبر وحبرتنا إلا متى برشة وحبرتي وحن كل رجلنا قبلها Soomaaliya إنه وحبرشة كبدالان إن كقوسنين إن كأسر ميديا عادي آدم وجماعة سنت هاي سد قرح البدن برنامج كنا جلس ساقيب كشيء وأنا كم سنت كل سودو أنكرا أنت ساكت بحاجة. السلام عليكم مقعي وعبد الله علي إبراهيم وحاكم ذا أرضي عاو كخل جبني الكلية ده شرعات قانونك وحن كلو دكتاتسي وكله كلية بابليك أدمنستريشن جامعة أنا دون يونيفرسيتي وحن دكتا يعني لما جامعات بان تركي كدكتا جامعة دي كلنا سنة كدي دمان سوحوا ما علنيا دمان كسر قيب قشة وهو كوثر ميديا iyo gudoomiyaha dalka Turkiga yaani jaaliyada Turkiga gacmo dheere iyo dhamaantina gal soo qabka farxadana la qaybsatay dhamaantii waa maasantiin bismillaahir rahmaanir rahiim Kowthar aad u maasantaana markale nala joogtid intaas kadib caawa meeshan waxa ka dhacday xaflad qalin jibin oo arday Soomaaliyeed oo ka kala imaatay magaalooyin kala duwan hay'adii maxaa la yiraahdaa wadankan ku haysay ee xaflad qalin jibin oo qabatay ardaydu waxay isugu jireen kuwa ka qalin jibinaya heerka dugsiga sare iyo heerka waxbarashada jaamacadeed aad aan ugu faraxsanahay anaga كرر أنكر أهان فرحت قارين ولا ده إن أرضي الصومالية دوران تمل والبلاكين أنا إنه يمادن وأنا مرتجلينه هذا وفرح سنة وأنا وهم بلياننا أنا كان كراهان سنة تومن أرضي أنا وجرتي ماشاس والله بقى جامعات كقلن جبسي سدحي تومن كقلن جبسي دوكسي كسرة وحنقول رجينا إن شاء الله تعالى مستقبل ونكسن ضد كان قلن جبي وضد لجو حساب تمكرو ومستقبل كصومالي إن شاء الله هنا وحكي قاتنا رجينا هذا دوما سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وشقاقة إسماعيل عبدي وحكم ذا أرض عاو كقلن جبسي كلية الشريعة وحكلو دكتور فصل كسدحات كلية مامل كدولية public administration جامعة أنا دون يونيفرسيتي وحاول أفرح سنين إلى هذه تمام يلي غيب وين وهمي يجي كم يدحين وأهينا جامعات كبحة إن شاء الله وحرجين هي إلى هاي تكلم هول شيء تقدمنا وناقي بتمام يلو نعاود أنا كي قاعد بفرح سنين هاي لما أنا أصحابتي وحنرجين هي قول يقبلنيمو إن شاء الله وحنرجين وقلا إن إلى هاي مرحن ذكر يقول الله وإنه علومتي عن فائدة سنة أنت عرفت السنة إلى هاي مدة Soomaaliyeed oo dhan oo ay ku intifaacaan Ilaahay naga dhigo kaalinta ummadda Soomaaliyeed ardayda Soomaaliyeed ku leedahay dhanka waxbarashada aad u sareysa wadanka Turkiga kulli aan joogno hadda aan garanayo waxa weeye kaalmaha ugu sareeya ardayda ajaanibta marka loo eego iyaga ku jira caawadaad si oo malaynaya arday badan oo Soomaaliyeed yaa kaalmaha ugu sareysa shaashar ugu siiyay magacaygu waa Cabdinaasir Xasan Caabi waxaan ku noolahay magaalada Samsun waxaan ka qalin jibinayaa kulliyadda culuumta islaamka sidoo kale waxaan sanadka saddexaad marinayaa maadada economiga waxaan dalka Turkiga nimid 2012kii ilaahay ma hadla maanta 4 sano kadib aan ka qalin jibinayno jaamacadii farxad weyn ayay noo tahay guud ahaan waxaan nahay tir ahaan 31 arday oo isku ka wada qalin jibinaysa kulliyadda culuumta islaamka sidoo kale waxaa jira arday kale oo ka qalin jibinaysa dugsiga sare oo aad u badan ruuxantii farxad weyn ayay noo ahayd waxaan jeclahay inaan ka faa'iideysano aad ugu mahad celiyo waalidiintii dawladdii asxaabtii cid alaale ciddii nagu soo tabacday oo halkan maanta soo gaarsiisay aad iyo aad ugu mahad celinayaa sharaf weyn iyo mahad weyn baan uga haynaa inaan noloshana wali anaga aan iloobi doonin sidoo kale waxaan raas gaar ugu mahad celiyo dawladda Soomaaliya oo ayuu sababtay in halkan anaga arday aan wax ku barno halkan aan nimaano iyo dawladda Turkiga oo iyaduna aqbashay inay canshuurta dalkeeda iyo dadkeeda iyo shacabkeeda ay ka qaado wax nagu barto wali waana fursad u helinaa tii Soomaaliya wax ku barano laakiin toodii ayagu ajnabi ay nasiyaan wax nagu baraan maanta kala soo gaarsiiyaan xaqiiqdii ma iloobi doono dad walaalaheen waligood aan garab taaganahay ma noqon doona insha Allah Ilaahay ilaahdo waa in mahad celinayna sidoo kale inta dan ka soo gudbo farxadeeda oo la soo koobi karin darteed waxaan waxyaaran dardaaran u jeediyo asxaabteeda qaaliga ee qalin jibisay runtii ardayda qalin jibinaysa ma aha anaga oo kaliya qoladaanadan culuumta ka qalin jibinaysa islaamka ee arday kale badan qalin jibinaysana way jiraan marka guud ahaan ardaydu waxaan oran lahaa
anagu haddaan ardada turkiga runtii ahmiyadnada koowaad waxaa weeye in dalkii lagu laabto wax la taro qof kasta magaaladu ka yimid tuuladu ka yimid gobolku ka yimid inuu waxuun tari karo wax yar iyo wax weynba qorshaasi waa noo degan insha Allah hadii la yiraahdo waana ka dhaweynaynaa guud ahaan marka ardayda waxaan leeyahay waxaan laga baahan yahay arintii aan ballan qaadnay halkan aan nimid inaan ka dhabayno labo nin aan noqono nin cilmigiisa siyaasado ama dalka jooga ama dalka u sii aada iyo nin dalka ku laabto shaqeeya oo ummadii wax tara magacayga waa Saciid Axmed waxaan ahay ardada wax ka barata wadankan Turkiga waxaan ka imid gobol la yiraahdo Karadeniz oo magaalada Bolu waxaan bartaa maadada psychology-ga sanadkayga saddexaad maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan loo dhigayo dad ka badan 250 Soomaali ah dadku way badan yihiin laakiin waxa farxad aad anaga noogu weynaa 250 qof oo arday Soomaaliyeed ah oo dugsi sare leh oo jaamacad leh inay maanta wasaaradda diinta iyo awqaafta Turkigu ay ka soo saarto dugsi sare iyo maadada ilaahiyaadka ama loo yaqaan diiniga runtii waxaan oran karaa wadanka Turkiga waa wadanka kaliya ay ka soo baxaan mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed anagana waxaan ka faraxsanahay inaan ka mid noqono dadkaas maanta toole xafladan qalajibinta aan ka soo qayb galnay waxaan uga imid aniga gobol saan u arko maantay jiil cusub oo Soomaaliyeed oo wax baranaya oo wadankoodii raba inay bedelaan waxyaalaha kaliya hadafka aan ka simanahay waxa weeye wadankeena inaan wadankeena wax u qabanno dalkeena bedelno waa halka hadaf oo wadankeena aan ku joogno oo aan rabno inaan kula noqono beritoole wadanka waxaan maanta wadankan ka barannay berri baan rabnaa inaan kula noqono wadankeeni aad baan u mahadsantahay timeka iyo waqtiga aad siisay waa mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiyaan Maxaa Huseen oo sanadan ka mid ah arday ka qalan jabinaysa jaamacadda 19 May kulliyadda shariicada islaamka soo kale waxaan ka qalan jabinayaa sanadan jaamacadda Anadolu University kulliyadda dhaqaalaha runtii waxay tahay amin weyn iyo farxad weyn maadaama aan muddo badan ku soo halgamay inaan gaaro hadafkan runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay lama soo koobi karo dareenkayga maanta oo kale waayo muddo dheer hadafkan ku soo gudajinayaa maanta in rumeeyo badan aan ku dadaalay Eğitim Bakanlığı'na öğretmen yetiştirmek ve sadece Diyanete din görevlisi yetiştirmek gibi guud ahaan wixii aad barateen cilmiga halkan aad ka barateen inaad dalkiina tagtaan ummadiinii aad ku dabaqdaan isla mar ahaantaana aad soo nooleysaan cadaaladii iyo dowladnimada Afrika ayaa idinkaga baahan yahay waxaana tihiin rajada kaliya ee ay sugayaan dalkiina başvurulan bir merci haline getirmek gibi bir vazifemiz var. Ben tekrar bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. gabagabada isla soo gaarnay dhammaan muuqaalada aad daawateen waa dhammaan mas'uuliyiin ka qayb galay iyo waliba arday Soomaaliyeed wax ka barata gudaha dalka Turkiga oo guud ahaanba ka qayb galay farxadda iyo caawa ay la qaybsanayeen ardayda Soomaaliyeed laga keenay magaalooyin kala duwan ee dalka Turkiga ardaydan ayaa waxay yihiin kuwa hadda hiigsanaya hididilooyin wanaagsan waxaan u rajeynaynaa in mustaqbalka wax badan ay ka bedelaan gudaha dalkeena Soomaaliya maanta u baahan inay wax u bartaan isla markaana ay anfacaan wadankooda iyo dadkooda iyo waalidiintii hore u soo dirsaday guud ahaan daawadayaal halka ayaa ku soo afmeeraya barnaamijkii koobnaa ee kaga diyaariyay xafladii qalin jabinta caawa ee ardayda Soomaaliyeed ee guud ahaan ka yimid magaalooyin kala duwan ee dalka Turkiga ayaa halka inoogu eg waa Kawthar Cabdiraxmaan Cilmi Kawthar Media oo idin soo gudbinaysa barnaamijkan quruxda badan intaan mar kale wada kulmi doono waa Kawthar oo idinkaga tagaysa Soomaaliya nabad iyo warsan amaana Allah